kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamijka hayaanka horumarka toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa horumarka dhanka bilicda ammaanka iyo dibdhiska lagu soo kordhiyey madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed dabcan villa Soomaaliya waa halka uu galo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa inay noqotaa meel aad u qurux badan oo ay soo jiidan karto bilicdeeda dadka kale ee ajaanibta ama dawladaha kale marka ay booqanayaan horay waxa ay ahayd meel ka duwan sida hadda laga dhigay markii madaxweynaha uu si rasmi ah ugu soo wareegay madaxtooyada 9 cisho kadib waxaa dib u dhis lagu sameeyay qaybo kala duwan oo ka mid ah xarunta madaxtooyada maadaama ay goobtani tahay meesha ugu sarreysa ee dalka laga xukumo waxaa la casriyeeyay iridda hore ee laga soo galo madaxtooyada oo qalab casri ahna lagu rakibay taas oo si fudud ay u isticmaali karaan dadka soo gelaya villa Soomaaliya waxaan howlka qabanaynaa madaxtooyada Soomaaliya howsha qabanayna waxa waaye waa installation of security system ama inaan gelino qalabka oo security oo high class oo ugu casrisan inaan gelino madaxtooyada ee Soomaaliya meeshan ajigno waxa waa guard house ama qolka ilaalada waardiyaha oo qolada u gudbayso gudaha si oo waardiyeynayay qolkan sida arda u jeedaan waxa way kor ay u kacay qol aad u yar ay hawa weyn hadartan waxa la dhigi doonaa gudihiisa laba shay oo baaritaan ah mid waa luggage scanner waa meeshii boorsoonka wixii lagu baarayay la dhigi doonaa iyo walk through scanner midkii dadka ay dhaxmarayeen oo baaritaanka ah qolka hadartan hawshiis meeshan ay maraysa muddo koon gudaheed insha Allah waan soo gabagabeynayna waan rinjiinayna meesha dhaxbartamaana waxa ugu talagalnay in ay dadkii socdo ay dhaxmaraan waxaan ugu talagalnay gadaal dhinaceeda kale waan arki doontaan qayb oo ah jaranjarada dadka caadiga ku soconayeen iyo qayb dadka oo disabled ama naafaha ay marayaan oo kale oo ugu talagalnay ayagan meeshaas waxaa sidoo kale la adkeeyay ammaanka soo gelitaanka madaxtooyada iyadoo labada qaybood la kala soocay oo dadkuna ay maraan meel gaar ah halka gawaariduna ay maraan baaritaano casri ah oo heerar kala duwan ay soo maraan halkan aad arkaysaan waxa ku jira qalab casri ah oo loogu talagalay inuu gaariga uu ka baaro waxyaabaha hoosta ugu dhigan si uu arko qofka halkaas ku jiro hawshan istiraatiijiyada waxay bilaabatay 2017 bishii July waliba 11keedii meelahaas inay ahayd baan filayaa shirkii ugu horeeyay aan qaadanay wuxuu ahaa laba hadaf inaan marka hore tiigsano inaan amniga madaxtooyada sidaan u adkeyn lahayn gab ahaanba qaabka loo soo geliyo iyo cidda soo gelaysa tan labaadna waxay ahayd bilicda madaxtooyada saan ayadana u qurxin lahayn labada hadaf anoo ka duuleynaa waxaan isweydiinay sidee hawshan u geli karnaa fursad waxay noo saamaxday marka inaan marka wax la diray inaan istiraatiiji ahaan soo fiiriyo madaxtooyooyinka adduunyada ama state house-yada kale qaabka uu amnigooda u sugan yahay bilicdooduna u hagaagsan tahay markaan baaris ku soo sameeyno wadamada noo dhow iyo kuwa noo fogba dhamaantoodba waxaa noo soo baxday inaan qalabkan la yiraahdo bollarka oo birahan dhulka soo baxaya ah road blockerka oo kan naga dambeeya ah qalab saasa sidii aan u soo hagaajin lahayn u keen lahayn iyo waliba inuu noqdo qalab quality leh oo la test gareeyay UK baa waxa ku yaala meel qolo commission ah oo qalabyadan yaani baabuurta intaasoo tan ah lagu test gareeyo inuu baabuurka crash garoobo meesha qalabka dhaawac ka gaar lahaa marka meeshan ka soo bilaawno marka koowaad waxay ahayd inaan istiraatiijiyadii fiirino kadib gawaaridu markii halkay dhaafaanna waxay sii mari doonaan dhowr aaladood oo casri ah oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka madaxtooyada handaabyo aad u fara badan iyo iskaan lagu hubinayo waxa ku xiran gaariga hoostiisa ayaa lagu soo kordhiyay horay uma aanay jiri jirin adeegan marka waxaan arkayay kolkii hore qofkii soo gali jiray madaxtooyada iyo hadda qofka soo galay bal farqiga u dhaxeeyo waxa u dhaxeeya laba wax waliba qofka kaliya ma gawaarida iyo waxaan oran karnaa qofka marka hadaan ku hormaro qofka su'aasha ay weydiisay kadibna gawaarida kugu xijiyo qofka waxa u dhaxeeya marka koowaad awal qofka yaani meel yar oo askari balbala oo habu istaagi jiray laakiin hadda waxay noqotay in laamigii dadka ay soo mariyeen
marka hore loo dhiso askarigii meel yaroo nadiif ah uu taagan yahay oo marka koowaad ba askarigu qofka uu hubiyo qofkan qof xaq uu ku gala meesha lama yahay laakiin meesha saxda qofka lagu baarayo waa meesha ay fadhiyaan control roomka oo yani dadka qofkii walk through dhex mariya iskaankii x-ray dhex mariya ID-giisa hubiya qofkiina uu dareemayo si sharaf leh inuu meesha uga soo dhaxbaxay sidoo kalena waxa ku xiran tone style oo wareegayo qofkii hadduu hub ama wax kala watana laftigeedana maxaan ku iraahdaayo cariiri iyo xanibaad gelinaya waxyaalaha marka hadda waxaad moodaa inay sidiina ka fudud tahay kana sharaf badan tahay gawaarida ku soo haray ta laftigeeda waxay fududeysay inaan keenay fingerprint oo gaarigu awood u leeyahay haddii meesha awal waraaqda laga siin jiray haddii gaariga la diiwaan geliyay qofka darawalka fartiisa in la diiwaan geliyo ama xildhibaanka gaarigaas kale ama wasiir gaarigaas kale darawalkiisa ama qofka ka shaqeeya madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaraha taa warka waxay fududeysay qofka inuu farta saaro ay alaabtiina ka furmato saanu qofka ku diiwaan gashan yahay baabuurkan la yaqaan taarikadiisa qofka farta saaray inuu ahaa baafo goorta uu soo galay iyo goorta uu ka baxay hatta la ogaan karo inuu eriyada madaxtooyada gaariga ku dhex jiro inuu ka dhex baxay taana waxay fududeysay amnigi marka askartii waxa uu fududaatay shaqadii dhowr waxba horta qorraxdii ay fadhiyeen waxa lagu bedelay maxaan ku raadaayo meelo ay galaan oo qurux badan labo birtii cusleed oo xariga ugu xorneedo isku bedeli jireen oo dalaci jireen oo maalintii dhan qof inuu ku mashquulo ahaydna waa laga baajiyay askari waa diyaarsan yahay qofkan iyo gaarigan ku mashquulsan inuu marka hore isku hubiyo meeshaan qalabkaan gelinay hadda u jeedin way taagan tahay qalabkan waxa la dhahaa taayakila taayarada ayuu banjarinaya baabuurkii isku day inuu sharci darro ku soo gudbo qol ayaa inta la keenaya oo la dhigaya system ayaa inta la gelina wixii horay oo manualka baabuurka oo xarig in laga qaado xarig la sii daayo oo la soo celiyo waa laga gudbay askari qolka ku dhex jiro waxa la leeyahay baabuurkaas ka qaad bitoon oo wuxuu riixaya oo up baashan kor ay u baxayso qalabkan meeshan birahna ilkaan hoos ay galayaan haddana markii birta u soo celinaya bitoonka down uu riixaya automatically birtan ida soo celinayso ganahana way soo baxayaan marka baabuurka isku day sharci darro inuu meesha gudbo taayarada ay ka banjarayso meel fogna ma gaarayo waxaa sidoo kale isbeddel lagu sameeyey wadooyinka ama dariiqyada gala gudaha madaxtooyada ee laysaga kala goosha xafiisyada iyagoo ahaayeen kuwa aada u burbursan howlaha socda ayay ka mid tahay macnaha ma gartay madaxtooyada in bilicdeedii iyo quruxdeedii la soo celiyo laamiga ayaa ku bilowday waxaan rabnaa feeska koowaad oo hadda socda oo ilaa iyo gudaha madaxtooyada ilaa xafiiska madaxweynaha ilaa guryaha martida ilaa iyo guryaha iyo beeraha agtooda laamiyada maraa oo dhan in la soo nooleeyo macnaha ma gartay oo si fiican loo saaro wixii ka dambeeyana waxaan howlgeli doonaa feeska labaad oo runtii gudaha madaxtooyada meel kasta oo ay ka muuqato laami la'aanta iyo diifta ka muuqata macnaha maartay in laga tirtiro oo laga baabiyo waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyey amba la hagaajiyey qaybo gawaarida ay dhigan karaan dadka booqanaya amba kuwa ku shaqeeya gudaha madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed laamigan oo hadda la dhisay jidkan 3 kiiloomitir isku yarka ah bilicda madaxtooyadu qayb muhiim ka qaadanaya door muhiim ah laamigaas oo muddo 9 maalmood socday markii aragnay baahidii jirtay oo bilicdii qaranka in la soo celiyo madaxtooyada in madaxtooyada bilicdeeda la soo celiyo oo laamiyadeedana dib u dhis lagu suubiyo si didiilo fiican wadanka guud ahaan ugu noqdo dib u dhiska u horseedo maadaama madaxtooyada qaranka laga bilaabo bilicda beertan waxaa sidoo kale qayb ka qaatay wiilkan dhalinyarada ah ee ku caanbaxay arar farmaajo iyo geeya beerta ayaan hadda dhex joogaa kuley hadda isbeddel weyn ayaan sameynay kuley haddana waa u jeedin beerta ayaan ku dhex jiraa hadda waxay taagan tahay baasha arbeerteeda iyo geeya
ay taagan tahay agaasimo aamino iyo aniga iyo kulli shaqaalaha oo kulli ku jiro oo hore iyo anigu kulli hadda isbedel weyn ayaan sameynay ليسعب بلالا لرام بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو إنهو إسرائيل من دمدار بعنا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو ليسعب بلالا لرام بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxay ahayd hoy ay deganaayeen shaqaale iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan xarunta madaxtooyada laakiin hadda waxa lagu soo koobay oo kaliya inuu halkaasi ku hoydo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxaa haddaba looga faa'iideystay hoygii dadkaasi laga raray markaan nimid waxay nala noqotay in maaragtay madaxtooyada maadaama ay tahay wajigii Soomaaliya ay siday ahayd aan wax ka bedelno wax bedelkaasna hadda waxa hormood ka ahaa agaasimaha guud iyo aniga iyo maaragtay oo ah agaasimo ku xigeenka madaxtooyada intaan hadda isbedelka dadka ka shaqeynaya ama ha ahaato albaabadiyo iskaan yaala dhigay ama laamigii la dhisay ha ahaato ama beerta quruxda badan ha ahaato ama xafiiska weynan anagu fadhina ha ahaato waxaa noo dhimay wax badan way isku dhex jireen hadda qaybta aad kor hadda tagteen ma ogi guriga weyn waxay ahayd qayb maaragtay deegaana ah xafiisyana ah marka hadda waxaanu maadaama ay tahay madaxtooyo deegaan ma noqon karto hal qof kaliya ayaa degi kara madaxtooyada oo ka noqon deegaan ku yeelan kara waa madaxweynaha Soomaaliya wiil Soomaaliya meesha yiraahdo ila Soomaaliya waa residency ama goobtii uu deganaa madaxweynaha iyo familiyadiisa la taliyaasha marka hadda muddo aduu 3 bilood ka hor meel ay fariistaan xataa ma jirin hore uma jirin la taliyo wuxuu ahaa qof uu iska magacaaban laakiin aan meel loogu soo hagaag lahayn hadda daartaas weyn oo banaanka ku taalood aragtay oo ahaan jirtay sida aan sheegay deegaan ahaan jirtay qayb yarna xafiisa ka haddana qayb ra'iisul wasaaruhu ka degan yahay ayaa waxaan ka sameynay dayactir xoog laan ka sameynay hanti dhowrka degan xataa waxaan ka sameynay dayactir aad u weyn oo gudaheedo dhan si fiican baa loo dhisay waxaana la fadhiyaa hadda oo loo qalabeeyay qof kasta oo la taliya ah qiiqdii markaa aan imid waxa jirtay meel beer ahaan jirtay aniga laftaydu dawladii Sheekh Shariif xildhibaan baan ahaa beer weyn bay ahaan jirtay laakiin markaan soo noqdo waxaan arkay meel gelina oo waxba ka jirin runtii haddana dadku markay kaftamaya waxay dhahaan beertii ama aaminay dhahaan laakiin beertaydii baa beertii qaranka aan uma jeclayna la yiraahdo waxaa iga gashay muddo 5 bilood ayaa banaanka taagnaa xataa aragtidaydu waa bedelantay marka maamahadu waxay ahayd aaminana hamadoobaata beertuna ha qurux badnaato beerta waxaa ku abuuran moos waxaa ka baxa kostaatada waxay dhahaan cagaarkan la cuno kaliya maaha aniga aamin ahaan waxaan aaminsanahay inaan kala untusno dalkeena meel kasta inay wax ka bixi karaan laakiin ulajeedadu maaha kaliya in ubax la daawado ulajeedada daba taal waa in la tusaa dadka xataa beertaas yar ee madaxtooyada ku dhex taal hadii la abuurto 5 qoys inay maaragtay dharjin karto aniga taas way muhiimadaydu sabul tira badan ayaa waxaan ku shubnay dambiil weyn madaxweynahan u geeyno narwaakan gurigaaga kaliya intaana ka bixi karta dalka hadii la hirgeliyo nabadu balaarato dadku wax soo saarka way nagu filanto Soomaaliya oo dhan baa ku noolaan karta marka qisadaas ayaa looga jeedaa iyo quruxda kama marna iyaduna mas'uuliyiinta iyo waliba shaqaalaha ka howlgala madaxtooyadu waxa ay fursad u heleen in ay helaan xafiisyo ay uga adeegi karaan bulshada haddaba dhismayaashii hore ee madaxtooyada ayaa isbedel casri ah lagu sameeyay iyadoo dhismayaal cusubna hadda ay socdaan hawshoodii halkan waa xafiiska uu fadhiisto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxa isna lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran taas oo qofka marka uu soo galo soo jiidan karto xafiiska madaxweynaha marka aad gasho waxa aad ku arkaysaa sawirka madaxweynihii ugu horeeyay dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan oo suran xafiiska madaxweynaha
waxaana ay muujinaysaa astaanta qiimaha uu dalka uu ku lahaa. muddadii sanadka ay jirtay dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa muuqata in dowladdu ay dadaalo ugu jirto sidii dalkan uu mar kale haybaddii uu ku lahaa caalamka dib loogu soo celin lahaa.